iminkana war degdeg ah. waa tahay deegaanka Banisa ayaa markaasi ka tirsan countigaasi Mandera waxaa laga soo sheegay in goor dhaweed uu halkaasi dhurwaa galay isla markaasina dad uu dilay qaarna uu markaasi dhaawacay waxaan iminka si toos ah ula xiriiri doonaa waryaheena countiga Mandera Ibrahim Happy kaasi oo qadka si toos ah ugu jiro. Ibrahim Happy aad baa u mahadsantahay maqribnimadii maanta ayaa deegaanka Banisa ka tirsan ismaamulka Mandera waxaa booliska deegaankaasi ay soo sheegeen in waraabo uu galay xaafad ka tirsan degmada Banisa halkaasi oo uu ku dilay hal gabar oo 13 sano jir ahayd oo magaceeda ay ku sheegeen inuu ahaa Masiina Mara Hussein Hassan halka uu laba qof kalena xaafadda ku dhaawacay labada qof sida booliska ay sheegeen magacyahooda waa Cabdiya Macallim Caliyow oo ah haweeney jirta 70 sano halka qofka kalena lagu magacaabo Shacbaan Maamo oo asagana ah nin oday ah oo 50 sano jir ah. dhacdada waxaa la sheegay in ay ka dhacday agagaarka iskoolka gabadhaha Banisa iskoolka sare gabadhaha Banisa halkaasi oo dowladna booliska ay booqdeen isbitaalka Banisa halkaasi booliskana ay baartaan ku sameynayaan labada qof oo waraabaha goobta dhaawacmayna dhaawac ka soo gaaray iyaguna isbitaalka Banisa lagu daweynayo markii ugu horeysay maaha dhaqaatiirta degmada Banisa waxay sheegeen in mar walbo xilliga roobka la gaaro waraabaha uu deegaanka yimaado halkaasna dad uu ku laayo ari uu ku laayo dad degmadaas mar walba ku dhaawaco marka warkaasi ayaa goobta laga soo gaaray degmada Banisa. waa tahay aad ayuu mahadsan waryaheena countiga Mandera ayuu kaasi ahaa Ibrahim Happy oo inala socodsiinayay warkaasi ku saabsan deegaanka Banisa.